kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Rajo Qaran TV qodobada aad ku daawan doontaan warka Rajo Qaran TV-na waxaa ka mid noqon doona galmudug oo qabatay gaadiid hubsiday faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay kulamo Nairobi uga soconaya madaxda maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya oo sheegtay in si degdeg ah loo dhameystirayo dastuurka dalka dhacdo ugu oo ka dhacday isbitaalka SOS booliska Mareykanka oo qabtay in Ilhaan Cumar uu hanjabay shiraax xasaasi oo Muqdisho ay ku yeelanayaan gudiyada dastuurka dalka wariyo Aldoon oo maxkamad la soo taagayo wadayaasha gawaarida Muqdisho ka howlgalo dhibaatooyin badan kala kulmaya maamulka gobolka Banaadir qabaa'ilo badan oo ka hor yimid waqti kororsi uu sameysanayo madaxweyne Farmaajo iyo hoyga madaxweynihii hore ee Suudaan oo laga helay shandada ay ka buuxaan lacago kala duwan intaasi waa qodobada ugu door karoon ee aad ku daawan doontaan warka Rajo Qaran TV haatan u diyaar garooba inaad daawataan isagii oo fidsan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 20 bisha Afraad sanada 2019 aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxa ay tibaaxayaan in ciidanka ammaanka Galmudug ay gacanta ku dhigeen gaadiid xamuul ah oo la sheegay in lagu soo dhaxqariyo hub gaadiidkan ayaa lagu qabtay duleedka magaalada Dhuusamareeb waxaana sidoo kale lagu dhigay shakhsiyaadkii wada hubka iyo gaadiidka saldhigga magaalada Dhuusamareeb ayay ku xiran yihiin waxaana haatan ku soconaysa baaritaano sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka gaabsatay inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan hubkan waxaana ay sheegtay inay socdaan baaritaano kala duwan geesta kalena magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa ka soconaya kulan ay ku yeelanayaan halkaasi madaxda maamul goboleedyada Galmudug Puntland iyo Jubbaland kulamadan ayaa looga hadlayaa xaaladda uu marayo dalka waxaana sidoo kale ay kaga doodayaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyo soo celinta shirarkii madaxda maamul goboleedyada madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi waxaana xalay ku biiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxda saddexda maamul ayaa dhawaan diiday shirkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Farmaajo waxaana ay aad uga soo horjeedaan sida ay dowladda Soomaaliya wax ku wado wararka qaar ayaa waxa ay tibaaxayaan in madaxweynaha Hirshabelle laga yaabo inuu ku biiro shirka ka socda Nairobi iyagoona halkaas la filan karo inay kaga dhawaaqaan dib u soo celinta golaha iskaashiga maamul goboleedyada ila ku dhow madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ay xaqiijinayaan sidoo kale ay jiraan dadaalo ay wado madaxda beesha caalamka ee ku sugan Nairobi oo ku aadan xalinta khilaafka dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada geesta kalena isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho ayaa lagu xaday ilmo yar oo saacado kooban dhalan kadib markii hooyada dhashay ilmahaasi ay seexatay xilli ay ku jirtay qolka isbitaalka la seexiyay hooyo Naciima Maxamed oo ah hooyada laga xaday ilmaha yar ee lagu dhex xaday isbitaalka SOS ayaa xaalad aan wanaagsaneyn ku jirta kadib markii ay si weyn kaga naxday ilmihii ugu horeeyay ee ay dhasho laga xaday ehelada ilmaha yar ee la xaday waxay codsanayaan haddii fariintan ay arkayso inay soo celiso ilmaha yar ee ay xaday haweeneydaasi maadaama hooyada dhashay xaalad khatar ay ku jirto Maxamuud Sheekh Axmed Maxamed oo ah wiilka la xaday awowgiis ayaa sheegay in saldhigga degmada Hiliwa ay ka diiwaan geliyeen kiiska si loo raadiyo haweeneyda ilmaha yar xaday wuxuu sheegay inuu ka codsanayo dadka Soomaaliyeed inay kala qayb qaataan baadigoobka ilmaha yar ee la xaday maadaama hooyadii laga xaday ay ku jirto xaalad khatar ku ah nafteeda si kastaba arintan ayaa ah midii ugu horeysay ee ka dhacda geyga Soomaalida gaar ahaan magaalada Muqdisho dhinaca kalena ciidanka booliska dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen nin kamid ah koox Ilhaan Cumar ugu hanjabtay inay dili doonaan kaasi oo ah cunsuri ay ku weyntahay nacaybka dadka soo galootiga ninkan ayaa lagu helay eedeemo kala duwan oo ah inuu maleegayay weerar lagu qaado dadka islaamka ah booliska waxa ay sheegeen in la qabtay ninkan kadib markii uu cod fariina u soo diray xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana uu ku sheegay inuu dili doono xildhibaan Ilhaan Cumar eedeysnaan oo 49 jir oo lagu magacaabo John Class kaas oo lagu eedeeyay in cod fariina oo hanjabada uu u diray Ilhaan Cumar iyo Rashida oo ah haweenka muslimka ee ku jira xisbiga dimuqraadiga booliska Mareykanka waxa ay sheegayaan in sharciga la marsiin doono isla markaana waqtiyada soo aadan uu ka soo muuqan doono maxkamad si loo xugmiyo geesta kalena wariye Cabdimalik Muuse Aldoon oo dhawaan ciidanka Somaliland ay ka soo xireen magaalada Burco ayaa la soo taagay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha maxkamadda Maroodi Jeex ayaa ciidankii soo qabtay wariye Aldoon ku amray inay dib ugu celiyaan gobolka Togdheer isla markaana ay soo taagaan maxkamadda gobolka sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxa uu ciidanka weydiiyay inay haystaan waran qabasho waxayna sheegeen in aanay haysan gudoomiyaha waxa kale oo ciidanka soo qabtay wariye Aldoon uu ku amray inay goob caafimaad geeyaan maadaama dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen si kastaba ahaatee wariye Cabdimalik Muuse Aldoon ayaan ahayn markii ugu horeysay oo ciidanka Somaliland ay xabsiga u taxaabaan inkastoo weli aan laga
dhawaajin kiiska rasmiga ee loo soo qabtay wariye Coldoon. Geesta kalena magaalada Muqdisho waa magaalo micno badan oo siyaabo kala duwan lacaga la isaga shaqeysto, gaar ahaan marka laga hadlayo shaqooyinka dowladda iyo kuwa hay'adaha. Ma jirto hay'ad ka tirsan ama wasaarad ka tirsan dowladda oo aysan ka jirin musuq. taasina waxay sanad kasta noo keentaa inaan hormuud u noqono wadamada uu la dagay musuqmaasuqa. haddii aad go'aansato inaad sharciga kaxaynta gawaarida ee driver license ka qaadato, waxaa kaa baxaysa lacagna $185, $150 oo ay kaa qaadanayso wasaaradda iyo shirkadda haysata mashruuca, $10 oo xarunta dambi baarista CID-da si aad u soo qaadato waraaqda cadaynaysa inaadan dambi ka gelin dalka, $25 oo caafimaada. xisaabta ku darso saddexda boono ee lacagaha kala duwan lagu kala qorayo waxay ka soo baxdaa hal xafiis, waxaana ku wada qoran maamulka gobolka Banaadir qaybta caafimaadka. waxaana arrintan ku jirta khiyaanaha inaan gobolka Banaadir loo gudbin guud ahaan lacagta $25 oo ay jirto siyaabo kala duwan oo loo kala qoondeeyay lacagtaasi. sida ay la wareediyo xaqiijinayaan, lacagta $25 waxaa ku heshiiyey inay kala qaybsadaan wasaaradda gaadiidka, shirkadda haysata mashruuca laysan bixinta iyo xafiiska dadka looga qaado dhiigga oo aysan oolin wax qalab caafimaada. qarashaadkan badan ee laga qaado darawalada kaxeeya gawaarida noocyadooda kala duwan ayaan weli waxaan jirin haqabtir lagu sameeyey baahiyaha ay tobanayaan, iyadoo wadooyinka Muqdisho ay usii dheer tahay inay yihiin kuwa kala wareega. dhinaca kalena iyadoo ay soo tarayaan cabashooyinka ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ka muujinayaan muddo kororsi la sheegay inuu sameynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa waxaa soo ifbaxaya in madaxda sare ee villa Soomaaliya ay haatan wadaan qorshe ay ku doonayaan in waqtiga ay ku dheereystaan. madaxweyne Farmaajo ayaa habeenadii la soo dhaafay waday kulamo gaar ah oo uu la yeelanayo odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada beelaha ku matala golaha shacabka. wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in madaxweynaha uu dadaal ugu jiro sidii uu taageero uga heli lahaa qorshe dowladiisu ku doonayso muddo kororsi, iyadoo muddo xileedkiisa uu ka dhiman yahay 20 bilood oo qura. madaxweynaha ayaa la kulmay odayaal, xildhibaano iyo waxgarad kala duwan oo ka kala socda dhowr beel oo ka tirsan beelaha Soomaaliyeed, wuxuuna qaarkood ku qanciyay inuu sameysto muddo kororsi, halka beelaha qaarna ay u sheegeen inaysan arrintaasi caqligal ahayn oo ay keeni karto dagaal sokeeye oo mar kale ka dilaaca Soomaaliya, maadaama madaxweyne Farmaajo tixgelintiisa ay ku eg tahay muddo xileedkiisa. wareedyo soo baxaya ayaa sheegaya in odayaasha, xildhibaanada iyo waxgaradka beesha Habargidir ay diideen inay la kulmaan madaxweyne Farmaajo kadib markii ay carabka ku adkeeyeen in madaxweynaha uu wado qorshe aan luga lahayn oo aysan jirin cid laga dhaadhicin karo. waxaa baaqday casharaf uu madaxweynaha u diyaariyay odayaasha, xildhibaanada iyo waxgaradka beesha Habargidir xilli juhdi, qarash iyo waqti badan la geliyay, sida ay noo xaqiijinayaan ilo kaag dhow madaxweyne Farmaajo. sidoo kale arrintan waxaa ka hor yimid inta badan beelaha Hawiye iyo Daarood, waxayna taas cadaadis badan ku abuurtay madaxweyne Farmaajo oo ay u muuqato inuu qorshahaas u yahay mid adag oo ay hore ugu soo fashilmeen madaxdii ka horeysay. sidoo kale dowladda Sacuudiga ayaa wada qorshe ay Farmaajo ka doonayso, taasi oo ah in xiriirka loo jaro dowladda Qatar isla markaana maamulka dowladdan loo dhiibo iyada si ay Soomaaliya uga fuliso mashaariic ay ka mid tahay la soo bixitaanka shidaalka dalka Soomaaliya. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa gudoomiyay shir u dhaxeeyay wasaaradda, guddiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. ujeedada shirkan ayaa ahaa dirdirgelinta iyo kamar dhalinta geedi u socodka dib u eegista dastuurka. ugu horreyn waxaa shirka furay wasiir Saalax Axmed Jaamac isagoo sheegay inay ka go'an tahay la shaqaynta guddiyada qaran ee ay howsha kala dhaxayso. gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo shirka ka hadlay ayaa wasiirka uga xog waramay howlihii la soo qabtay. gudoomiyaha waxa uu xusay heshiiskii dhex maray guddiyada wasaaradda ee lagu wada shaqaynayay sanadkii tagay, isagoo sheegay in la raaco heshiiskaas si dhowna loo wada shaqeeyo si looga wada miradhaliyo howlaha dib u eegista dastuurka. wasiir Saalax ayaa sheegay in loo baahan yahay in dastuurka lagu dhammaystiro sida ugu dhaqsiyaha badan. ugu dambeyn, saddexda hay-ad ee u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa ku ballamay shirar kale oo ay ugu arrinsanayaan si ambaqaadida howlaha dib u eegista dastuurka. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa Rajo Qaran TV. iminkana akhbaraadka dibadda. hoyga madaxweynihii hore ee Suudaan ayaa laga helay shaandado ay ka buuxaan lacago kala duwan. ila sirdoonka militariga dalkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in hoyga Omar Xasan al-Bashir laga helay shaandado ay ku jiraan in ka badan $351,000, 6 milyan oo lacagta Euro-ga iyo 5 milyan oo giniga dalka Suudaan. ila dhinaca garsoorka oo la hadlay Reuters ayaa iyagana sheegay inuu dacwad ogaha dowladda amray in la soo xiro al-Bashir iyo in si degdeg ah wax
wax looga weydiiyo si loo maxkamadeeyo. Dacwad oogaha ayaa lagu wadaa inuu madaxweynihii hore ee dalkaasi su'aalo ku dhex weydiiyo xabsiga uu ku xiran yahay ee Kobar oo ku yaala magaalada Khartoum. Talaabadan ayaa soo baxday kadib markii uu dacwad oogaha bilaabay baaritaanka dacwadda la xiriirtay in al-Bashir lacago xawshay. Ururka xirfadleyda Suudaan ee horkacay dibadbaxyada waxay ku baaqeen in la xisaabtamo al-Bashir iyo maamulkiisa oo ay ku eedeeyeen inay geysteen musuq iyo inay fududeysteen xiisadii dhaqaale xumida ee sanadihii ugu dambeeyay ee xukunkiisa. Dhinaca kale qaraabada al-Bashir waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan baaritaanka la sheegay in lagu bilaabay al-Bashir iyadoo ila ka tirsan qoyskiisa isbuucii hore sheegeen in al-Bashir loo gudbiyo xabsiga dhexe magaalada Khartoum. guud ahaan warkii aad ka daawanaysaan Rajo Qaran TV aqiyaaray wanaagintaasi aad u heshaad buu warar ay ku soo kordhaa geyga Soomaalida iyo daafaha caalamka. subscribe saaro Rajo Qaran TV.